ma taqaanaa labada nooc ee yaanyada u kala baxdo ee midda ku fiican haddii aad greenhouse leedahay iyo haddii aad bannaanka ku abuuraysid sababtoo ah way kala duwan yihiin midda greenhouse-ka lagu abuuro iyo midda bannaanka lagu abuuro marka waxaa jira yaanyooyin aad u fara badan oo dadkeenu ay ka faa'iideysan karaan oo weliba nooca loo yaqaano sibizanta oo bannaanka lagu abuuri karo السلام عليكم كسر هذا الفيديو كله إني دارس فهم سومالي أنا وترجل إني كيف يستند كسوماليات مقعي علي باشي فلنا هدي أكو عصبتها كنال كسبسكرايب ده بيل كنا تابو ونقود بي ولا الله كلا سوماليات سي وقف يديستان وضدنا وقارتوا مع سنتين سيدا شكنا فيديو وحن واحد لنا لبض النوع يعني يدو أكل بحثه بدنا ميدا جرين هاوس كوفي عن يميدا بناك كوفي عن قيبها مرك فيديو وحن واحد لنا وحكمد إن قيحنه لبض النوع أكل بحثه وحكلو كمد sidee loo sheegaa farqiga u dhaxeeya determinate iyo indeterminate yaanyada maxay ku kala fiican yihiin ama advantage iyo disadvantage-ka maxay yihiin labada yaanyo noocee greenhouse-ka lagu abuuraa iyo noocee bannaanka lagu abuuraa intaas oo dhan videogan ayaan rabnaa inaan ku soo bandhigno marka labada nooc ee yaanyada u kala baxdo waxa loo kala yaqaanaa determinate iyo indeterminate labadaas magac ayay leedahay oo badanaa mid waa jirtaa dhexda ku jirta oo la yiraahdo semi determinate oo labadooda u dhaxaysa laakiin intooda badan yaanyada la abuuro oo dhan labada nooc ay u kala baxdaa yaanyada waa naqaanaa geedaha ugu muhiimsan adduunyada oo aadka loo soo saaro ayay ku jirtaa oo geed qudaar ahaan ka horeeya yaanyada ma jiro laakiin su'aalaha badanaa dadka ku cusub waxa weeye inuu ogaado inay tahay determinate iyo indeterminate nooca ay tahay qofka inuu ogaado muhiim ayay u tahay haddii aad marka ogeyn labada nooc waxay kala yihiin iyo waxa looga kala faa'iideysto videogan ayaan insha Allah aan kaaga qancinaynaa qeexitaanka haddaan fiirino kulli aad akhrinaysid laakiin determinate waa waxa xilli ay ku dhamaada leh indeterminate-na waa wax meel ay ku dhamaato aan lahayn oo waqti iyo meel ay ku dhamaanaysa aan lahayn marka sidaas ay u kala duwan yihiin waxna waa waqti xilli kooban ku dhamaanaya waxna waa waxan xilli go'an aan lahayn oo laga yaabo waqti dheer inay qaadato marka sidaas ay labada yaanyo ku kala duwan yihiin labada nooc sida aan sheegnay waa mid bannaanka in lagu abuuro iyo mid in greenhouse-ka lagu abuuro ayay ku kala fiican yihiin laakiin haddii aad rabtid inaad ogaatid fiiritaanka aad fiirinaysid miyaad ku ogaa kartaa waa maya shantan sawir haddaad fiirisid oo yaanyooyin kala duwan ka muuqdaan midee determinate iyo midee indeterminate aragti oo aad fiiriso kuma ogaa kartid siyaabo kale oo lagu ogaado ayaa jira sababtoo waa weyn iyo yaryarba waa leeyihiin marka inta ay la eg tahay kuma xirna determinate iyo indeterminate kuma xirna marka sidee loo sheegaa marka maadaama aadan size ka fiiri karin sidee loo sheegaa farqiga u dhaxeeya determinate iyo indeterminate si guud haddii aad marka u eegtid determinate-ka waxaa loo yaqaanaa bushi ama waa gaaban yihiin caleentoodu waa isku badan tahay inta badan 1 mitir iyo bar ma dhaafaan dherer ahaan waa calaamadaha lagu yaqaano determinate-ka labadan sawir waxaan ka qaaday afgooye oo yaanyo determinate ay ka baxayso yaanyo biroleyda aan u naqaano marka waxaa ka muuqata koriimo xumo iyo nafaqo xumo ayaa ka muuqata yaanyadan laakiin yaanyadan aad u jeedid oo halkan ka baxaysa waa determinate xilli kooban ayay gurtaan beeraleydu ka bacdina waa dhamaanaysa wax soo saar ma lahan inkastoo xataa laga yaabo xilligaas kooban inaysan wax dheexa soo saarin sida mid halka ka muuqato kale haddaysan nafaqo fiican iyo dadaal fiican haddaysan helin waxaa jira marka noocyo kale oo tayo leh oo yaanyo waaweyn oo la abuuri karo oo bannaanka lagu abuuri karo oo ka soo wax soo saar badan mideena kale xataa oo miroleyda haddii nafaqo fiican ay hesho wax soo saar aad u fara badan ayay leedahay biyo fiican iyo nafaqo fiican oo ku habboon haday hesho laakiin cilada yaanyo miroleydeena wadankeena haysata oo ugu daran oo xitaa haday wax soo saar ay leedahay waxa weeye inaysan lahayn kaydsiimo badan ma lahan si dhaqso ayay ku halaabaysaa markaas la soo guro agtida hadaan la isticmaalin hore ayay ka halaabaysaa meesha hadda adduunyada ay yimaadeen yaanyooyin badan oo markii la soo guro waqti dheer la hay karo oo geneticadu ayaa laga soo shaqeeyay waqti dheer la hay karo ilaa heer ay gaarto in usbuucyo la hayo ayadoon waxba halaabin oo xataa fridge la gelin haddii meel qabow la dhigo indeterminate marka haddii ay tahay yaanyadu waa noocyadan oo kale oo greenhouse-yada lagu abuuro aad ayay u dheeraadaan 3 mitir ugu yaraan ayay gaaraan haddii kale waaba kasii dheeraadaanba marka ayaga waxaa lagu yaqaanaa in xilli ka dambaysa yaanyadii la iska guranayo oo aysan joojinayn ilaa wadamadan qaboobaha leh oo kale ay gaarto xilliga qabowga ka bacdina markaas qabowga dartiis ay u dhimato ee ma ahaane inta kale ay sideeda u baxayso marka
labadaas qaybood waa qaybaha waaweyn oo labadooda aad ku kala aqoonsan karto oo ku kala duwan karto. haddeerna waxaan fiirinaynaa inaan warbixin kale kaa sii siino oo waxyaabaha aad ku kala sooci kartid labadan yaanyo, iyo sidoo kale inaan ku tusno midda aad dooro laheed sababtoo ah waxaad adiga u baahan tahay iyo danta adiga ku haysa darteed midda aad dooro laheed. marka inta waxaan kugu tusaynaa tallaabooyinka lagu go'aaminayo inay tahay determinate ama indeterminate inay tahay. labadan sawir hadda midka bidixda ah waa determinate, midda midigta ahna waa indeterminate. marka tallaabooyinka aad qaadayso si aad u ogaatid labada nooc ay tahay ayaan kugu tusaynaa qaybtan. adduunyada meelo fara badan nooca yararka aad ayaa loo soo saaraa, aad ayaa loo jecel yahay, weliba markii cuntooyinka la samaynayo iyo aad ay u fiican tahay. marka waddankeena waa keeni karnaa yaanyooyin kale oo yaryar ah oo ku habboon in noocyadaas loo isticmaalo, noocyo weliba la yirahdo cherry tomatoes. miraheeda waddanka waa la keeni karaa. dabcan insha allah video ayaan rajeynaya inaan ka sameeyo qaabka yaanyooyinkaas ay ku kala duwan yihiin iyo miraha dabadda laga keenayaa sida ay yihiin iyo inay waddankeena faa'iido u leeyihiin. insha allah iyadana video ayaan ka samayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo, iyo sidaad ku ogaa laheyd. marka midda koowaad oo lagaa rabo inaad fiiriso waxa weeye inaad fiiriso yaanyada dhirirkeeda. sidaan hore u sheegnaba, yaanyada dhirirkeeda ayaa kuu sheegaysa nooca ay tahay. hadday aad u dhaadheer tahay oo 3 mitir ay ka badan tahay, markaas waad dareemi kartaa inay tahay indeterminate oo greenhouse-yada ay ku fiican tahay. laakiin dabcan haddii ay gaaban tahay oo yaanyo aad uga gaaban ay tahay oo 1 mitir iyo bar aan ka badnayn, waxay noqonaysaa determinate. haddii greenhouse ay tahay waa inaad xirtaa si aad u ogaatid dhirirkeeda. greenhouse-kiina booskiisa aad si fiican uga faa'iidaysatid. bannaanka markay tahayna meelaha qaar waa la xiraa, laakiin dabcan haddii aadan awoodin inaad xirto waa iska digi kartaa oo determinate aad bannaanka ku abuurto oodan awoodin inaad xirto, faraha waa ka qaadi kartaa. laakiin markasta waxaa faa'iido badan in la xirxiro. midda labaad oo aad fiirinaysa waxa weeye caleemaha yaanyada. determinate markii ay tahay caleemaheeda iyo geedka xididkiisa aad ayay isugu dhow yihiin, laamihiisa iyo geedku aad ayay isugu dhow yihiin. markaas waxay u ekaanayaan inay tahay bushi ama caleemo aad u fara badan ayay yeelanaysaa. marka haddii saas ay tahay waxaa lagu yaqaanaa inay tahay determinate. laakiin indeterminate hadday tahay waxaa lagu kala yaqaanaa ayadana in ay caleemaheedu ay kala fog yihiin. dabcan inkastoo ayada la jarjaro oo maaragtay loo ogolaan in caleemaheedu aad isku soo dhawaadaan, laakiin determinate-ka iyo indeterminate-ku waxay kala duwan yihiin. indeterminate-ku in caleemaheedu ay kala fog yihiin. marka caleemaha waa waxa labaad aad fiirinaysid. midda saddexaad oo aad fiirinaysid waa ubaxyada iyo miraha ay soo saarayso. haddii markii yaanyada ay miraheedii oo dhan hal mar soo saarayso ama waqti isku dhow oo aan kala fogeyn ay soo saarayso miraheedii 3 weeks 4 weeks ah iyo ubaxeedii oo dhan, marka taas waa determinate. halka haddii ay tahay indeterminate-na ay wadayso inay mirihii soo saarto waqti dheer oo ubaxii ay soo saarayso. sida hadda aad uga jeedid sawirkan oo kale, qaybaha hoose mirihii waa diyaar, waa bisil yihiin, gurasho ayay diyaar u yihiin, halka korna ay sii soconayaan oo ubaxii ay soo saarayso yaanyadii oo kabacdina saas loo guranayo. marka waxyaabaha lagu kala yaqaano taas ayaa ka mid ah. sababtaas darteed ayaa indeterminate-ka greenhouse-ka loogu sameeyaa si xilli dheer gurashada loo wado. midda afraad oo laga fiirinayo waa baakadda ay ku timid. dabcan baakadda ama boxka ay kugu timid markaa soo iibsanaysay ayay ku qoran tahay waxa ay tahay determinate iyo indeterminate. wix ay tahay baakadda ayay ku qoran tahay. marka baakadda haddaa kasoo gadato ama ay soo sameeyeen company magac leh oo ku dadaalaya customerkiisa waxay u baahan yihiin, way sheegaysaa marka inay determinate tahay iyo inay indeterminate ay tahay, way kusoo qorayaan. kabacdina boxka ayaa ka fiirinaysaaba oo waa sahlantahay. dabcan waxa ku qoran iyo hadhow waxa kuu soo baxa hadday is yeelan waayaan, markaas haddee waa la soconaysaa, marka dambe ayaa ka digtoonaanaysaa. halkaana waxaan uga hadlaynaa marka maxay ku kala fiican yihiin determinate iyo indeterminate. mid miyaa liidata mise mid ayaa fiican? taas jawaabteedu waxay ku xiran tahay baahidaada iyo sida u isticmaalaysid yaanyada. marka qaybaha soo socda ee videoga ayaa waxaan ku sheegaynaa waxyaabaha ay ku kala fiican yihiin ama ay ku kala liitaan. waxaa laga yaabaa marka waxyaabahaas ay ku kala fiican yihiin ama ay ku kala liitaan inay adiga kuu fiican tahay, qof kalena ay u xun tahay. marka adigana waxaa fiirinaysaa xaaladaada iyo baahida u qabtid iyo sida u isticmaalaysid. halkan marka haddii aan fiirino oon ku bilowno determinate, faa'iidooyinkeeda ama advantages waxa la yiraahdo waa ku fiican tahay. midda koowaad waxa weeye inay hagaajin yar u baahan tahay. maxaa yeelay maadaama cimrigeedu uu gaaban yahay, ayaduna ay gaaban tahay, shaqada ay kaa rabtaa iyo sida u maamulaysid waa sahlan tahay, hawl badan kaama rabto.
oo xitaa mararka qaar waxaad awoodaa intaad abuurto adan waxba ku samayn inaad faraha ka qaado oo hadhow markii waqti cimrigeeda uu dhammaado ama mirihii ay diyaar yihiin aad soo gurato oon waxba ka qaban miro waaweyn iyo miro yaryar mid leh labadaba waa abuuri kartaa taas marka waxaa sameeya dadka dhul weyn abuuraya oo aan shaqo badan u hayn oo aan xirxiri karin oon diyaari karin yaanyadan ay isticmaalaan bes marka sidaas darteed waa maamulkeeda iyo shaqadeedu waa sahlanta ayada midda labaad waxay noqonaysaa in yaanyo badan ay kuu soo saari karto horaanta ama xilliga koowaad ee wax soo baxaan meesha aad kale sugaysid waqti dheer oo yaanyada ay kala qaybsan tahay tan halka mar ugu horeysa ay wixeedo dhan kuu soo saaraysaa midda saddexaad waxay noqonaysaa inaad ka fogaatid marka arrimaha cudurrada oo caadiga ah oo la yaqaano oo yaanyada ku dhaca xilliyada dambe maxaa yeelay geedkan soo saaritaankiisa wuu joojinayaaba marka badanaa waxaa dhacaysa yaanyada haddii xilli badan ay kuu baxayso adigiina aadan daawadii iyo cudurradii si fiican ula dagaalami karin waxaa kugu dhacaysa in maaragtay 3 bilood 4 bilood 5 bilood aysan kuu baxayn marka waxaa laga yaabaa adoo abuurtay indeterminate oo la rabo inay 5 bilood 6 bilood aad gurato inaysan kuu suurtoobayn sababtoo cudurkii ayaa dhib kuu keenaya marka tan oo kale taas ayay meesha ka saaraysaa waa abuuraysaa bil iyo xogaa guranaysaa wixii hal mar ay kuu soo saaraysaa kabacdina waa baabi'inaysaa marka taasna waa faa'iido midda kale oo aad heli karto oo faa'iidada ka heli karta waxa weeye in haddii yaanyada aad rabto inaad gasacadayso ama aad rabto inaad hal mar gobol u safriso dhowr hektar haddii aad abuurto waxaa kuu suurtoobaysaa in hal mar ay badana kuu soo wada go'aan hadda si fiican u maamusho ayagoo dhan hal mar ay kuu soo go'ayaan kabacdina aad safarkii dirto ama haddii aad gasaacado u isticmaalayso aad u isticmaasho marka taasna waa faa'iido kabacdina dhowrkaas bilood kadib oo yaanyadii ay diyaar kuu tahay oo aad guratay booskii kuu banaanaado oo kuu soo baxa wixii aad rabto kale ayaad ku abuuranaysaa maahane dhowr bilood inaad sugto kuma qasbanid haddii aan marka fiirino faa'iido daradeeda ama disadvantage-ka ay leedahay determinate yaanyada la yiraahdo waxaa dhacaysa in halkii geed aad helaysid yaanyo ka yar indeterminate-ka intaa heli lahayd sababtoo ah waqtiga ay tan kuu baxayso oo aad soo guranaysay way yar tahay sidaas darteedna waxaa ka soo guranaysaa way ka yar tahay midii bilaha badan baxaysay marka si haddii loo eego khasaare ma ahan maadaama aad waqti yar ay kuu baxayso waxaa kaloo disadvantage noqon kara ama faa'iido darro noqon kara in yaanyadaadii oo dhan hal mar oo isku dhow ay kuu soo wada baxayso marka suuqu hadduu kaa hooseeyo oo suuq qiimihiisu uu liito ama aada suuq u haysan fiican dhibaatay kugu noqonaysaa meesha midda kale ay xilli kale fog aa helaysid sidaan arki doonno marka tan maadaama suuqii aad suuq fiican haysan dhibaatay kugu noqonaysaa waxaagii oo dhan oo hal mar kuu soo go'a suuqiina uu raqiis yahay midda kale dhibka kaloo jira waxa weeye maadaama determinate yaanyada ah aan la isku dhoweyn ilaa waxaa la rabaa boos la dhex maro caleentoodiina lama jarayo marka waxaa ku qasban tahay inaad kala durjisid sidaas darteed yaanyada kuu geli kartaa halkii boos way yarta midda kale waxay noqonaysaa maadaama determinate ay xilli dhaqsaa dhimanayso oo geedkii uu meesha ka baxayo adigiina haddii aadan diyaarsan dalag kale oo aad ku bedeli lahayd waxaa kuu soo baxaysa marka boos bannaan oo kaa raba wixii aad ku buuxi lahayd haddana haddaan fiirino indeterminate midda la yiraahdo faa'iidooyinka ay leedahay iyo waxyaabaha ay ku fiican tahay oo loo doorto midda koowaad horta waxa weeye calaa geed waxaa ka helaysaa yaanyo ka badan determinate-kii waxyaabaha ugu koowaad oo saas u noqonaysana waxa weeye in middaani xilli dheer la rabo inay kuu baxdo midda labaadna waxa weeye in kastoo yaanyada kale oo determinate-ka la yirahdo yaanyo waaweyn ay soo saarto haddana in determinate-ka ayaa ka yaanyo waaweynaa karta sababtoo ah waxaa la samaynaya waxaa la jarayaa caleemihii iyo laamihii geesaha hal jirid ayaa loo soo reebayaa marka waxaa kasoo baxaysa miro ka waaweyn taas ayaa kasoo baxaysa marka taasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka waaweyn sidoo kale faa'iidooyinka waxaa ka mid ah in geedo badan ku koritaankooda boos yar haddii hal jirid loo sameeyo sida hore usoo sheegnoo kale haddii la isticmaalo geedo fara badan ayaa halkii safba geli kartaa si tartiib ah ayaad usoo saari doontaa yaanyo fara badan xilli dheer ilaa dhaxan ama cudur uu kaaga dhaco yaanyada maahane waqti dheer ayay kuu suurtoobaysaa inay yaanyada iska soo gurato marka maadaama xilli dheer yaanyadaada suuqa ay ku jirto oo aad xilli dheer soo guranayso waxaad dhici karta marka inaad kusoo aado iyadoo suuqiina raqiis yahay ama uu qaali yahay oo aad taas ka faa'iidaysato macaasha ka hesho faa'iido darooyinka haddii aan eegno oo indeterminate yaanyada ahna waxaa ka mid ah dayactir badan
ayay kaa rabtaa u baahan tahay maxaa yeelay geedku ma joojinayo koritaanka marka waa ku qasban tahay inaad isticmaashid nidaamka la yiraahdo staking iyo pruning waa lagama maarmaan sababtoo ah greenhouse-kii meel laga maraba maba yeelanayaba faa'iidada dhammaa oo greenhouse-ka loo dhisana waxay ahayd inta kor loo taago in booska kore laga faa'iidaysto marka staking iyo pruning labadaas waa qasab in la sameeyo yaanyadan marka shaqay rabtaa haddii marka aadan pruning ku samayn waxaad heli kartaa yaanyo badan oo kusoo baxee ilaa geedihii dhinacyada dhan ma aada jarin yaanyo badan kuu soo baxaysa laakiin yaanyadaasna waxay noqonaysaa mid yar yar cabir ahaan yaanyo aad u waaweyn ma helaysid insha allah videos ayaan waxaan ka samayn doonaa marka qaabka loo sameeyo stakinka oo ah xarigga inta hoos yaanyada loogu soo qabto ilaa kor la geeyo iyo sida pruninka loogu sameeyo oo ah inaad laamihii iyo geedihii saa'idka ahaa aad ka saarto meesha insha allah waxaan rajeynaynaa marka videoskaas inaan xilli kale aan soo dayi doono waxaan rajeynayaa marka inaad ku fahantay nooca aad u dooro lahayd haddii aad ku abuuraysid greenhouse iyo haddii aad ku abuurinaysid banaanka yaanyadii aad dooro lahayd nooca ay tahay waxaan rajeynayaa inaad taas aad ku fahantay noocee marka greenhouse-ka lagu abuuraa ee u dooro lahayd dabcan haddii aad greenhouse leedahay yaanyada aad rabto waad abuuri kartaa ama determinate ha ahaato ama indeterminate ha ahaato laakiin markii aad isticmaashid determinate boos fara badan ayay kaa qaadanaysaa oo dhulkii ah korna si fiican waxuma aadiyaan marka sidaas darteed ganacsi markii ay tahay yaanyada determinate-ka ah greenhouse-ka laguma abuuro sababtoo ah meeshii dhan waxay ka dhigaysaa meel aan la mari karin maadaama aadna aysan u dheeraanayn booskii kore kama faa'iidaysanayso xilli dheerna ma baxayso oo waqti koobanna way dhimanaysaa marka sidaas darteed determinate yaanyada la yiraahdo laguma abuuro greenhouse-yada maadaama marka indeterminate-ka yaanyada la yiraahdo ay tahay mid aad uga faa'iidaysanaysa booska kore ee iska bannaan ee greenhouse-ka ka sarreysa oo xariggii loo sameeyey kor u raacaysa iyada weeye midda ugu soo wax soo saarka badan oo loo isticmaalaa greenhouse-yada marka midda ugu fiican oo lagu koriyaa greenhouse hadday noqoto waa indeterminate laakiin haddii aad ku cusub tahay wax abuurka oo beeraha oo ay kugu adag tahay pruninka ama stakinka waxa la yiraahdo inaad samayso markii aad cusub tahay waad abuuri kartaa determinate-ka ayadaba laftigeeda miro waaweyn waa yeelanaysaa haddii ilaahay yiraahdo taasba xoogaa yar ka yaraatee ilaa aad experience fiican helaysid oo aad cudurkii iyo wixii o dhan aad maamuli kartid determinate-ka waa ku abuuri kartaa haddii weliba aadan ganacsi waaweyn aadan u isticmaalayn kabacdi markii aad la qabsato qaabka loo maamulo greenhouse-ka oo aad fahanto markaas kabacdi ayaad indeterminate aad abuuri kartaa insha allah noocee banaanka lagu abuuraa marka nooca banaanka lagu abuuro waxay noqonaysaa inay noqoto midda la yiraahdo determinate-ka taas weeye midda loo isticmaalaa oo banaanka lagu abuuraa kuna habboon oo haddii qofku uu awoodo inuu u sameeyo geedo iyo tiirar gaagaaban oo ay raacdo oo lagula xirana waa fiican tahay ayadaa ku fiican banaanka haddii uusan awoodinna uu iska daayo oo sideeda u baxdo dabcan geedaha saa u dhaadheer way adag tahay in banaanka wax looga soo saaro oo wax lagula celiyo in la helo marka sidaas darteed indeterminate-ka banaanka laguma abuuro waxaan rajeynayaa inaad videogan ka faa'iidaysateen intaan video kale ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan